السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogaan. galabta hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa kilibkan yar ama fiidiyowgan yar inaan ugu faa'iideysto cudurkan dunida saameeyey. si qaas ah waxaan uga hadlayaa ummadda Soomaaliyeed oo Soomaaliya joogto. maalmahan markaa baraha bulshada fiirisid ama aad wacdi Soomaali dadkii joogo asxaabtaada ama qaraabadaadii intooda badan ma aaminsano cudurkan inuuba jiro. qaarkood waxay ku leeyihiin dadka muslimiinta ama dadka Soomaaliyeed maba ku dhacay dad muslim aan anaga. marka dunida markaad fiirisid wuxuu leeyahay waa inta badan ku dhinta waa ummad Soomaaliyeed ama ummad muslimiin ah. Sweden waxa la sheegaa lambarka ugu badan inta Soomaali waas markaas oo muslimiin waana Soomaali kuwa xamar ku joogan waa muslimiin waana Soomaali. marka cudurkan ma ahan muslim iyo gaal intaba ma kala laha waa cudur saf mareen ah. taas inay ku baraarugaan Soomaalidu waxa waa wax aad u fiican wax muhiim ah. hadduu Ilaahay yiraahdo galabta meeshan waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka taabto ummadda Soomaaliyeed la wadaago hadduu Ilaahay yiraahdo. qodobka koowaad isku tashi inaan anaga isku tashi sameyno taas oo ugu bixi karnaa lambar 1 inaan isku tashi sameyno. isku tashi marka qaabkee ku imaan karaa isku tashi wuxuu ku imaan karaa in annagii aan isbaraarujinno aan ogaano awooddu Ilaahayna siiyey. awooddu Ilaahayna siiyey waxaa ku ogaan karnaa maanta waxa joogo Muqdisho ilaa dad gaarayo 4 milyan ilaa 5 milyan. guri walbo haddii la dhaho $1 iska qaada waa wax wanaagsan wax weynna meel ka soo bixi karo iyo gobolladii dhan. dhanka kale markii loo soo laabto isku tashiga maxaa la dhihi jiray idaacadaha isgaarsiinta ayadana sidoo kale hormuuda ugu tun weyn shirkadaha waaweyn oo ayagana sida xawaaladaha waaweyn oo sidoo kale Dahabshiil, Premier Bank, Salaam Bank ayagana waxa waayn sidoo kale inay ka qayb qaataan badbaadinta ummadda Soomaaliyeed shacabkaas inay ka qayb qaataan. sidoo kale dowladdii maanta jiritaanka Soomaaliya ayay wax ku tahay shacabkaas haddii una jirin ciidaas iyo geedaas ku yaala Soomaaliya cid u talinaysa ma lahan. waxa loo talinayaa waxa weeye shacabka inay badbaadisanay oo waxa koowaad u qaatay xilka ee maanta ay shacabku haaso. marka inaan isku tashanno aan anaga maanta ogaano awoodeenna wax wanaagsan waa ma ahan inaan beesha caalamka iyo adduunka u qaylino. adduunka maanta cudurkan waa saameeyay qof walba waddan kastana asiga ayaa ku mashquulsan sidoo ugu bixi lahaa. maanta waddanka ugu fiican oo dhaqaaqa sameeyo oo wax badan caawiyo Turkiga waa madaxweynaha Turkiga markuu wasaaraddiisa caafimaadka la hadlayay wuxuu dhahay Soomaaliya si degdeg ah in loo gaarsiiyaa dhaqaatiir iyo qalabkii cudurkan. laakiin wuxuu daba dhigay Soomaaliya inay isku tashato taas oo ah beesha caalamka in u qaylin ee Soomaaliya koow ay sameyso isku tashi iyo cudurkan si macnaha shacabkeedii ugu badbaadin lahayd. danna anaga waa soo gaaraynaa u leeyahay. marka anaga qodobka koowaad laga rabo waxa inaan isku tashano Soomaaliya awoodaan leenahay maanta haddaan isku tashano shacabkeennii ganacsatadii dowladdii xisbiyada oo siyaasadeed xawaaladihii maxaa la dhihi jiray bangiyadii shirkadihii waaweynaa intaas haddii isku tiirsanaadaan wax weyn oo anaga tilaab fiican oo ku qaadi karno maanta waa sameyn karnaa. qodobka labaad waxaa rabaa talada waxa usoo jeedinayaa marka waa dowladdii iyo xisbiyada mucaaradka iyo ganacsatada. dowladda lacagay sheegtay ilaa 5 milyan ah inay akoonkeeda ka saartay ilaa haddana ma muuqato wax ay ku qabatay. dadka isbitaalka u isteysay markii la geeyo wuxuu dhimanaya oxygen la'aan daawo la'aan dhaqaatiir la'aan waxa waan wixii ay sheegaysa dowladda waxba kama jiraan. xisbiyada maanta ma joogto muddo ku taag xilligeed waxaa la iska rabaa in annagii maanta mid noqono Soomaali mid hal far aan noqono
mahmaadii ahayd odaygii dhalay 9 wiil oo min ul u dhiibay ay jibiyeen markii 9 ul isku xireen ay jibin waayeen wuxuu dhahay haddaa isku duubnaataan oo mid noqotaan sidaana noqonaysiin laakiin haddaa tala faaruqa noqotaan oo micnaha nin kasta aniga u dhaho sidaana u jajabaysaan marka wax taas waxay caddaynaysaa annagay maanta Soomaaliya inay mid noqoto isku tashanno xilli midi ku taagayd waa laga baxay maanta cudurkan dunida saameeyey sidaan ugu bixi lahayn inaan maanta mid u noqonno qodobka kale oo ah talo in la isku mid ay ahaato micnaha Soomaalinimada waxay caddaynaysaa jiritaankeenna inaan sii jirno Soomaalinimo ay sii jirto xildhibaanada wasiirada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre xisbiyada siyaasadeed dhammaan iyo ganacsatada in u turaan shacabkooda ay u naxaan waa qodob meesha ku jiro codsi maamul goboleedyada dowladda Soomaaliya dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamul goboleedyada maanta ma joogto midi ku taag markii la dhahay in shacabkeenii Soomaaliyeed meel walbay joogaan gobol walba tuulo walba degmo walba inay maanta ay og yihiin inay mas-uul ka yihiin ha ogaadaano maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaba ay maanta cudurkan u noqdaan mid hal meel ugu soo wada jeesano si shacabkii u talin rabaan berri ay ku maanta u taliyaanba jiritaankooda usii xoojiyaan culammada Soomaaliyeed kheyr allaha siiyo waxyaabihii loo rabay inay kasoo dhalaalaan way qabteen laakiin weli gaabis ayaa la dareemayaa taas waxaa ka mid ah gaabiska masaajidadii markii la dhahay dowladda masaajid ha la xiro culammada Soomaaliyeed way wada diideen cudurkan waxyaabaha laga qaado waxaa ka mid in laisku imaado laissalaamo neefta isgaarto masaajid markii lagu dukanaana waa dareemi karnaa garab in lais saaro laba qofood oo neeftooda isgaarto issalaamaan Soomaaliya layaha waa laismarxabadaynayaa oo laba qofood markii imaad haba isiinayaan way issalaamayaan waxaa laga masaajidkaas dad dhowr sano iskugu dambeysay inay isku soo dugtaan marka taladii dowladda inay culammadii dhinaca ka qaadato masaajidaha ay xiraan si temporary ah cudurkan intuu dhinac naga mara insha Allah ilaahay dhinac naga mariyo dalkan Uganda hadda annaga ku noolnahay ilaa iyo 7 jimco laguma dukan waa la xiray masaajidii goobaha kale kaniisadaha waa la xiray ganacsiga xooggiisa waa la xiray kaliya waxa furan meelihii cunnada taasna waxay caddaynaysaa dowladdii in shacabkeedii ay badbaadiso xalay u aragtay marka in meelihii dhan la xiro goobihii waxbarashada jaamacadihii iskooladii kulli waa la wada xiray ayadoo arkaysa xal shacabkeeda inay sii jiraan ay badbaadaan qodob kale oo raba inaan aad uga hadlo ganacsatada maanta lama joogo markii aad dhehayseen faa'iido mid saaran sii raadi ganacsatada Soomaaliyeed waxaa lagu xantaa inay tahay dhiig miirato ma ahan inaad maanta shacabkii sii dhimanayo dhiig ka sii miirataan waa inaad nafaqaysaan qoodisaan badbaadisaan dhankiina wax ka badbaadisaan ilaah weyn ka sokow waan dareemi karnaa waan ognahay Soomaaliya ganacsatada Soomaaliya xilliisaan oo kale ah marxaladaha adag markay imaadaan qof kasta wuxuu haayo keedka u geliyaa si ula sugo markay micnaha meel qaraar gaarto inuu lacag badan saarto maanta taas ma ahan maanta waxa waa yaa wax tiri karo iyo taariikhda xustaa la maraa ganacsatada ma ahan shacabkii meesha dhiig ka miiran leedeen ma la joogo inaad dhankiina ugu turtaan shacabka dowladda dhankay ugu turayso si lamid ah oo kuliba ka weyn ka baaxad weyn inaad u turtaan waa dalkan Uganda madaxweynaha Museveni waxyaabaha ka hadla wax ka mid ah lambar 1 ganacsatada wuxuu dhahay ganacsigii shay ku dara ah raashinka sinti ku dara waxa kala laabanayna shatiga aqoonsiga ganacsiga kala laabanayna daan isku laabanayna
dowlad maanta micnaha baawurkaas ah oo micnaha Soomaaliya kama jirto oo ganacsatada ayada dowlad kale ah laakiin inay u naxaan shacabkoodii ay u damqadaan maanta fiiriyaan wax wanaagsan waa inaan fiirin xigta yar ay helayaan waxyaabihii lagu xamin jiray ama maanta ay soo baxayaan ama waa iska dhaqi doontaan ganacsatada qodobka kale oo raba inaan ka hadlo hooyooyinka Soomaaliyeed aad aan u bogaadinaya hooyooyinka Soomaaliyeed aad aan u bogaadinaya khayr Allah siiyo hooyooyinkeena Soomaaliyeed maanta Soomaaliya wax weyn ay u tareen Soomaaliya meesha joogto waxaa ka qayb qaatay hooyooyinka Soomaaliyeed mid yaayin gato mid dhar wareejiso mid wada xaaqdo waxaan jiritaanka Soomaaliya maanta waxaa qayb weyn lixaad ka qaatay hooyooyinka markay dowladda burburtay ilaa haddana qoysas badan ayay ku taagan waxaan rabaa marka hooyooyinka waxaan rabaa inaan kala hadlo gurigii inta badan ayagaa jooga khayr Allah siiyo ilmaha markay baxaan in badan horta ilmaha guriga inay ku celiyaan hadda iskooladii iyo jaamacadihii inta badan fasax waa guriga inay ku celiyaan kii la celin waayo oo danaysto meel aadani markuu soo laabto inuu gacmihi iska dhaqo wax wanaagsan waa ay ku baraarugsanaadaan hooyooyinka Soomaaliyeed ay isku duubnaadaan maanta waxa lagu badbaadi karaa hooyooyinka taladooda khayr Allah siiyo waxaan rabaa qodob ugu dambeeyo duco inaan u duceyno Soomaalida ku dhimatay meel walba ay joogaan dunida inaan u duceyno ilaahay jannada firdawsi geeyo kuwa la xanuunsan hadda la il daran inaan u duceyno inuu ilaahay soo caafiyo meel walba ay joogaan kuwa Soomaali joogo iyo kuwa dunida kala qaybaheeda kala joogo inuu ilaahay soo caafiyo aan u duceyno cudurkan aan meel ugu soo wada jeesano ilaahay waxa ka toogayaa inta dhimatay inuu ilaahay u naxariisto kuwa kale nooga dhiman cudurkan kuwa hadda la xanuunsan oo caafimaadaan taladaas yaraan soo jeedin lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala